nabaday daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada tabin kale oo ka mid ah barnaamij caawa oo ay taariikhdu tahay 23 Sebtembar sanadka 2025 qodobo waaweyn oo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa caawa. hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbad dheer ka jeediyay telefishinka qaranka ee dawladdiisa. waxa uu si ba'an u weeraray wadanka Mareykanka waxana uu yiri wada hadal kasta oo nuclear ah oo lala furo Washington waxa uu dhalin doonaa cawaaqib weyn oo wadankeena saameyn ku yeelata. waxa uu yiri Mareykanku marnaba daacad kama noqonayo in guulo diblomaasiyadeed laga gaaro wada hadalladan. dhinaca kalena waxa uu yiri haddii aan la hadalno oo wada hadalladu ay sii socdaan waxa uu saameyn ku yeelan doonaa guud ahaanba arrimaheena mustaqbalka iyo jiritaanka dawladdan. arrimahani waxay ku soo aadayaan xilli la qorsheynayo wada hadallada ka dhacaya magaalada New York ee u dhaxeeya dawladaha saddexda ah ee reer galbeedka iyo waliba dawladda Iran ee ku saabsan arrimaha nuclear-ka. haddaba khudbadda Khamenei caawa maxay ku saabsanayd? dhinacyada ay taabato maxaa ka mid ah? muxuuse yahay walaaca ninka ugu sarreeya dawladdaasi uu dareemaya hadda? walwalka ugu weynsama waxay tahay weerar kale oo lagu soo qaado wadankiisa xilli maalmihii ugu dambeeyay uu kor u qaaday sanada militariga ee ciidanka loo iibinaya iyo miisaaniyadda wadankaasi uu goonida u saaray ciidamada qaranka ee dawladda Iran. warbixin ayaan idinkaga hayaa kala shakiga cusub ee Mareykanka iyo dawladda Iran xilli laga digayo dagaal kale oo suuragal noqon kara oo ka bilowda gobolka bariga dhexe. isla markaana arrintan ay ku soo aadaysa xilli ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu shalay si weyn ugu goodiyay in Iran iyo xulufadeeda uu xidhiidh siibi doono. intaa waxaa raaci doona haddii uu guul la saamaxo oo barnaamijka idinkugu sheegi doona. ilaa iyo 50 doonyood oo suuragal ah saacadaha soo socda in ay ka dhaqaaqaan xeebaha meel ku dhow wadanka Tunisia isla markaana ay ku sii jihaystaan wadanka nidaamka la yiraahdo Israel dhulka ay gacanta ku hayso ee Falastiiniyiinta. ujeedada ugu ballaaran waxay tahay guud ahaanba xayndaabka adag ee la saaray magaalada Gaza in la jabiyo isla markaana la gaarsiiyo gargaar degdeg ah. Israel ayaa ku eedeysay doomahaasi inay abaabulayaan kooxo dibad jooga oo gacan saar la leh dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Hamas. haddaba suuragal ma tahay doonyahaasi in ay xayndaabka jabiyaan? ilaa iyo 50 doonyoodna suuragal ma tahay ciidamada Israel inay ka hortagaan? maxaa ka jira mid ka mid ah doonyaha in goor hore oo maanta ah ciidamada Israel ay weerareen isla markaana ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku duqeeyeen? doontaasi maxaa soo gaaray? barnaamijka ayaan ku faaqadayaa. dhaqdhaqaaqa hubaysan ee wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee Hamas lagu magacaabana waxa ay si adag uga falceliyeen eedaynta maanta uu jeediyay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. waxay yiraahdeen eedayntaasi ma aha mid sal iyo raad leh, war akhyaareedna kumuusan hadlin Trump iyo waliba nin doonaya wada hadal inuu gaarsiiyo dhinacyada hadda ku loolamaya bariga dhexe. warqadda ay soo saareen warbaahinta caawa loo qaybiyay sidee loo fasirayaa? barnaamijka ayaad sidoo kale akhyaaray ku daawan doontaan. Barrow Show ayaa daawanaysaan iyo qubanaha wararka caawa iyo dunida. fadlan si aad macluumaad iyo warar dheeraad aad u heshaan ha hilmaamina YouTube inaad subscribe saartaan. haddii dhinaca Facebook aad nagala socotaanna ku soo biira beeshka oo follow soo dhaha. aad baad u mahadsantihiin. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa markii ugu horeysay si ba'an uga hadashay qorshaha dawladda Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku ay ku raad joogaan oo ku saabsan arrimaha hubka nuclear-ka iyo waxyaabaha laga yeelayo wada hadalka diblomaasiyadda ee suuragalka uu yahay inuu ka furmo magaalada New York. Ayatollah Ali Khamenei oo ah murshidka ugu sarreeya wadankaasi ayaa khudbad la duubay waxa uu ka jeediyay telefishinka qaranka ee dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. waxa uu yiri wada hadal kasta oo lala gala Mareykanku ma noqonayaan kuwa natiijo wanaagsan ay ka yimaadaan. taa beddelkeeda iska dhaaf wax laga dhaxlay waxa uu wadankan gaarsiin doonaa qasaarooyin weyn oo ay suuragal tahay dawladdu inay si weyn uga fiirsato. hadalkan ayaa waxa uu noqonayaa mid adag oo ku soconaya Washington isla markaana muujinaya dawladda Iran inay u diyaar garowday suurtagalnimada dagaal mar kale ka dhaca gobolka bariga dhexe oo ay isku gacan saaraan dawladda Iran iyo xulufada isgarabsanaysa ee Mareykanka iyo sidoo kale nidaamka Israel uu hogaaminayo Benjamin Netanyahu.
hadalkan caawa laga sii daaya telefishinka dowladda iiraan ayaa kusoo beegmaya iyadoo shalay taliska dhexe ee militariga israa'il ee magaalada qudus uu ka hadlay ra-iisul wasaare netanyahu kuna dhawaaqay in sanadkan 2025 iyo 2026 ay noqon doonaan sanado dhiile iyo colaado ah islamarkaana ay furi doonaan furmo iyo aagag cusub oo dagaal ilaa inta iiraan iyo xulufadooda laga saarayo gobolka bariga dhexe ujeedada waxa uu yidhi inta aynu ku noolnahay walaac iyo gabasho suuragal maaha ayuu yidhi netanyahu in arrintan aan sii wadno waxayna arrintaasi ku soo aadaysaa iyo hadalkan uu jeedinayo xilli gobollo kala duwan oo ka mida bariga dhexe ay ka dhacayaan dagaallo xoog leh furimaha yemen gaar ahaan magaalada sanca uu xuutiyiinta kula dagaalamayo benyamin netanyahu bariga waddanka lubnaan qaybo ka mida waddanka syriya iyo weliba dhulka falastiiniyiinta ayaa xiisadda hadda aada uga sii daraysa telefishinka qaranka ee dowladda iiraan waxa uu leeyahay hogaamiyaha sare ee jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayatullaahi cali khamani ayaa maanta oo salaaso ahayd ku sheegay khudbad telefishinka laga sii daayay in wadahadallada lala yeelanayo maraykanka ee ku saabsan barnaamijka nuclearka aysan wax faa'iidaa u lahayn guud ahaanba waddanka iiraan khamani ayaa carabka ku adkeeya in wadahadalladaasi keliya aanay ahayn kuwa faa'iido u lahayn waddankiisa balse ay sababi doonaan khasaaro weyn oo ka dhaca guud ahaanba dalkan kuwaasi oo qaar ka mid a ay yihiin kuwa aan dib loo sixi karin haddii tallaabooyinka maraykanka iyo qorshooyinkiisa la hirgeliyo hadalka hogaamiyaha sare ee waddanka iiraan ayaa imaanaya iyadoo xaaladda gobolka iyo xiisadda nuclearku ay weli taagan yihiin waxaana hadalladaasi ay ka turjumayaan mowqifka adag ee ka dhanka ah cadaadiska iyo weliba cuqdada dowladda iiraan hayse ee maraykanku uu ku hayo waddankaasi iiraan gaar ahaan magaalada dahraan jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa marar badan ku celisay in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid nabadeed oo loogu talagalay ujeedooyin horumarineed halka washington iyo xulufadeedu ay ku eedeeyeen dahraan inay doonayso awood ciidan oo nucleara oo aada u ballaaran hadalkan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay ahayd ninka lagu magacaabo islaami oo ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka iiraan iyo weliba hogaamiyaha barnaamijka nuclearka waddanka ruushka ay shalay saxiixdeen ilaa iyo 8 xarun oo nucleara in loo dhiso waddanka iiraan taas oo qandaraaskeeda si rasmi ah u hirgelin doonto dowladda ruushka sidoo kalena dowladda iiraan ay shalay qalinka ku duugtay in matooro ku shaqeeyo shidaal casri ah ay ka soo iibsan doonto gudaha waddankaasi ruushka kuwaasi oo loogu talagalay in lagu xiro diyaaradaha dagaalka ee waddankaasi iyo maraakiibta suuragalka ah dagaalada inay ku galaan badweynta hindiya maadaama waddankaasi la qorsheynayo weerar xoog leh in uu la kulmo dhaqdhaqaaqa hubaysan ee wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa si adag uga jawaabay eedayntii ka soo baxday madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump taas oo ku saabsanayd in netanyahu uu keliya yahay cidda keliya caqabadda hadda haysa islamarkaana heshiiska xabad joojinta diidan sida ay ku doodeen dhinacyadan falastiiniga ah trump ayaa sheegay in kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta ee gobonnimo udirirka ah ay mar walba diidan yihiin in guulo nabadeed laga gaaro dagaalka bariga dhexe isagoo ku tilmaamay in kooxda xamaas ay muhiim tahay in ay hubka dhigaan bayaan ka soo baxay kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa maanta oo salaasaha si adag loogu beeniyey hadallada madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku dooday in kooxda xamaas ay diiday soo jeedinta xabad joojinta magaalada go'doonsan ee hadda dhibaatooyinka adag wajahaysa kooxda waxay caddaysay in ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu yahay caqabada keliya ee hortaagan dhammaan isku dayada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis buuxa oo dhammaystiran iyadoo kooxdu ay sheegtay in ay mar walba muujisay dabacsanaan iyo weliba ka tegitaanka waxyaabo badan oo ay doonayeen markii hore inay ku adkaadaan si loo gaaro xabad joojin dhammaystiran bayaanka ay soo saarto kooxda waxaa lagu yidhi weligaan caqabad kuma noqon heshiis xabad joojinta magaalada go'doonsan waxaana bixinay dhammaan dabacsanaantii loo baahnaa taasi waa midda keenaysa benyamin netanyahu in uu ku sii adkaado waxay uu doonay inuu sameeyo maraykanka iyo dhexdhexaadayaasha iyo beesha caalamka oo dhan waa ogyihiin in qofka dembiga dagaalka qaadanaya uu yahay netanyahu
kan keliya ee carqaladeynaya dadaalada heshiiska lagu gaarayana uu isaga yahay. kooxdu waxay xustay in Netanyahu uu horey uga baxay heshiiskii la gaaray bishii Janaayo ee sanadkii 2025 sidoo kalena ay iska indhatirtay baa layidhi soo jeedintii uu keenay dhexdhexaadiyaha Maraykanka Steve Witkoff, taas oo kooxdu ay horey u ogolaatay. waxaa intaa dheer in kooxdu ay ku eedeysan Netanyahu inuu qaaday weeraro cirka ah oo lagu beegsaday xarunta wadahadalka dhexe ee Dooxa ah xilli ay madaxda kooxdu ku guda jireen in ay ka doodaan sidii xabad joojin dhammaystiran loo gaari lahaa isla markaana dhinacyadu ay u qaadan lahaayeen door dhexdhexaadnimo ah. wararka ka imaanaya gobolka bariga dhexe ayaa waxay tilmaamayaan in 50 doonyo iyo maraakiib isugu jira ay u jihaysan doonaan dhinaca magaalada go'doonsan ee Gaza saacadaha soo aadan kadib dhowr maalin oo dhaqdhaqaaqyadan socdaalka adkaysiga samirka loogu magac daray ay ku aruurinayeen badda loo yaqaano Mediterranean-ka ama Al-Bahrul Mutawassit. ujeedaduna waxay tahay in la jabiyo go'doominta lagu hayo magaaladaasi oo hadda meeshii ugu adkayd ee xaalad bini'aadanimo ay gaarta ah wajahaysa. waxaa maanta oo Salaaso lagu soo waramayaa in ka badan 50 dooniyo iyo maraakiib ah inay ku soo aruureen gudaha aagga la calaameeyay ee badda Mediterranean-ka, gaar ahaan aagga biyaha caalamiga ah ee koonfurta Gariiga, iyagoo ku sugan marxaladii ugu dambeysay ee diyaargarowga socdaalka dhanka magaalada go'doonsan. waxaana lagu wadaa in maalinta berri ah subaxnimada hore ay dhammaan maraakiibtaasi iyo doonyaha hal mar ay uga dhaqaaqaan dhanka magaalada Gaza, inkastoo ay jiraan hanjabaadyo isku dayo nidaamka Israa'iil ay doonayaan in ay kaga hortagaan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyadaasi. wararku waxay sheegayaan in mid ka mid a maraakiibta weerar lagu qaaday isla markaana ay duqayso diyaarado aan duuliyo lahayn xilli ay ku sugnayd dekad ka mid a goobaha loogu talagalay inay ku sugnaadaan, balse shaqaalaha saarnaa doontaasi ayaa waxa ay sameeyeen adkaysi waxaana ay ka hortageen guud ahaanba khasaarihii soo gaaray inay si fudud u farsameeyaan. maalinta berriyana waxay ka mid noqon doontaa doonyaha iyo maraakiibta magaalada go'doonsan u jihaysan doona. safarka ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Barcelona ee waddanka Spain 23 maalin ka hor, halkaasi oo ay kaga soo gudbeen dekado ku yaala dalka Tunisia, kadibna ay ku hadkadeen qaybo ka mid ah waddanka Gariiga. inta lagu guda jiray hakadkaasina waxaa la sameeyay dayactirta qaar ka mid a maraakiibta, waxaana la saaray socdaalka kadib markii ay ku habboon tahay safaf dhaadheer inay ku dhaqaaqaan. doonyahan iyo socdaalkooda ayaa loogu talagalay asluubta samirka sida loogu magac daray, waxaana ku dhowaad 1,000 u dhaqdhaqaaqayaasha caalamka ah ay halkaasi saaran yihiin. ujeedadana waxay tahay in laga hortago dhibaatooyinka dadka magaalada go'doonsan ku sugan inay la kulmaan. nidaamka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay doonyahan iyo abaabulkan weyn ee doonaya in ay jabiyaan xayndaabka ay dhigeen in ay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Xamaas ee hadda dagaalada kula jira, kuwaas oo abaabul dibadda ah si weyn hadda u sameynaya si ay dunida ugu fasiraan Israa'iil inay tahay cidda dhibaatooyinka gobolka bariga dhexe ka shaqaynaysa. madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trumpna waxaa su'aalo adag caawa ku garaacay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgalaya gudaha waddanka Maraykanka ee ku sugan magaalada New York ee hadda uu ka soconayo shirka qaramada midoobay. wariyaasha ayaa waxa ay weydiiyeen su'aalo adag isaga uu barbar fadhiyay madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky. su'aalaha ugu ballaaran ee la weydiiyay waxay tahay haddii wadamada Yurub iyo weliba Ruushku ay isku dhacaan waxa uu ka yeeli doono xaaladda dagaalkaasi inay suuragal tahay inuu ku biiro. saatee waxau yidhi duruufaha iyo wakhtigu sida ay noqdaan ayaan uga jawaabi doonaa. sidoo kale waxaa la weydiiyey qaybo ka mid a diyaaradaha Ruushka oo ku soo xadgudbay wadamo NATO ka tirsan haddii ay tallaabo qaadi lahaayeen waxa uu ka yeeli lahaa, waxaana uu sheegay taasi in maalinteeda laga jawaabi doono. ugu dambeyntii wariyaasha ayaa weydiiyey weli inuu ku kalsoon yahay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo ay saaxiibo isku dhow yihiin marka la fiiriyo tallaabooyinka uu hadda qaadayo. hase haatee Trump ayaa ku jawaabay in muddo 30 maalin ah uu jawaab ka bixin doono su'aashaasi la weydiiyey. Trump ayaa caawa la arkay isagoo su'aalaha saxafiyiinta si weyn uga gabanaya
maadaama xaqiiqada rasmiga ah loo baxay oo ay saxafiyiintu soo bandhigayaan wixii ugu dambeeyay ee dhacay iyo weliba ballamihii la galay oo aan weli suuragal noqon. akhyaarta inala socota ay tabinta qaybtana intaas ayaan ku eebeeyaa. warar kale ayaa inoo soo socda. indhaha ku haya youtube-kan oo subscribe saara. aad baad u mahadsantihiin.